His Excellency Mr. Abdel Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt and incoming Chairman of the COMESA Authority of Heads of State and Government. His Excellency Mr. André Rajoelina, President of the Republic of Madagascar and outgoing Chairman of the COMESA Authority of Heads of State and Government. Your Excellencies, Head of State and Government of COMESA members. His Excellency Moussa Faki Mohammed, the Chairperson of the African Union Commission. All protocol observed. Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor and privilege to be participating in the 21st Summit of the COMESA Authority, Heads of State and Governments, to discuss the way forward for our regional organization. madaxweynaha jamhuuriyadda Madagascar ahna gudoomiyaha COMESA, madaxweynaha jamhuuriyadda Carabeed ee Masar, mudanayaasha madaxda dawladaha xubnaha ka ah COMESA, xogayaha guud ee COMESA, gudoomiyaha ururka midowga Afrika, madaxweynaha bangiga horumarinta Afrika, ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ahna xogayaha fulinta ee guddiga dhaqaalaha qaramada midoobay ee Afrika, xogayaha guud ee aaga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika, agaasimaha bangiga adduunka ee isdhexgalka gobolka Afrika, bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika, mudanayaal iyo marwooyin. waxaa sharaf weyn inoo ah inaan ka soo qayb galno shir madaxeedka 22aad ee COMESA si aan uga arrinsanno sidii loo sii ambaqaadi lahaa horumarinta urur goboleedkeena. halku dhiga shirweynaha sanadkan oo ah xoojinta adkeysiga iyada oo loo marayo isdhexgalka dhaqaale ee istiraatiijiga ah kaasi oo ku salaysan tiknoolajiyadda casriga ah waa mid aad u habboon marka la eego gobolkeena iyo guud ahaan qaaradda Afrika oo leh mid ka mid ah da'yarta ugu badan uguna rajada fiican adduunka kuwaasi oo si weyn uga faa'iideysan doona isdhexgalka dhaqaale ee ku dhisan tiknoolajiyadda casriga ah kaasi oo dhex mara wadamadeena. I wanted to express our gratitude to His Excellency Mr. André Rajoelina, the President of Republic of Madagascar and outgoing Chairman of the COMESA Authority of Heads of State and Government, and his excellent leadership through one of the most difficult period in the organization's history. waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Madagascar oo ah gudoomiyaha xilka ka degaya ee maamulka COMESA. mahadcelintaasi oo uu ku mutaystay hogaamintiisii wacneed ee uu majaraha ugu hayay ururka mid ka mid ah xilliyadii ugu adkaa taariikhda. mahadsanid. sidoo kale waxaan doonayaa inaan si diiran u soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Masar oo noqonaya gudoomiyaha cusub ee ururka COMESA. waxaana aad ugu kalsoonahay in madaxweyne Abdel Fattah al-Sisi uu si wanaagsan u sii wadi doono hogaaminta ururkan isagoo mudnaanta siinaya dhaqaalaha iyo horumarinta gobolkeena si aynu uga soo kabanno dib u dhaca ay sababeen cudurka COVID-19 iyo isbedelka cimilada adduunka. mudanayaal iyo marwooyin, dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay si weyn u garab taagan tahay gudoomiyaha golahan waxayna ku dadaalaysaa inay la shaqeyso dhammaan bahwadaagteena si loo gaaro ujeedooyinka asaasiga ah ee isdhexgalka dhaqaale ee dhow si looga jawaabo loogana soo kabsado saameynta xun ee cudurka COVID-19 ku yeeshay dadkeena nolol maalmeedkooda dalalkeena iyo qaaradeennaba. caabuqan safmareenka ahi waxa uu si murugo leh inooga dilay dad badan waxa uuna soo bandhigay itaaldarrideena asaasiga ah ee nidaamyadeena oo aynu awoodi weynay inaynu si wax ku ool uga jawaab celinno dhibaatooyinka cudurkan. si kastaba ha ahaatee Soomaaliya waxa ay si dhow ula socotaa doodihii u dambeeyay ee ururka ganacsiga adduunka ee ku saabsan ka tanaasulidda heshiiska Travis. waxaan dhiirigelinaynaa rajada laga qabo in wadamada Afrika ay soo saaraan tallaalka COVID-19 kaasi oo kor u qaadi doona isku filnaanshaheena sidoo kalena awood u siinaya gobolkeena inaan helno tallaal ku filan dadkeena si la mid ah dalalka adduunka horumaray taasi oo inoo ogolaanaysa inaynu si wax ku ool uga jawaabno cudurka safmarka ah iyo safmarada kale ee mustaqbalka iman kara. Excellencies, ladies and gentlemen, COMESA member economies are diverse and rich in both natural and human resources.
There are real opportunities to benefit from this through enhanced and efficient intra-COMESA trade if we can successfully scale up and improve our internal policies, systems, processes, and cooperation. While much has been achieved in integration with COMESA, there is still some way to go for countries like mine, which are only now starting to return to the path of economic development after a long period of challenges. mudanayaal iyo marwooye wadamada xubnaha ka ah COMESA waa ay kala duwan yihiin waxa ayna qalin ku yihiin kheyraadka dabiiciga ah iyo kan aadanaha labadaba waxaa jira fursado dhab ah oo looga faa'iideysan karo iyada oo loo marayo in la xoojiyo ganacsiga gudaha ee COMESA taasi oo ku imaan karta inaynu kor u qaadno oo aynu horumarino siyaasadeena gudaha nidaamyadeena iyo iskaashigeena iyada oo wax badan laga gaaray isdhexgalka COMESA ayaa haddana waxaa jira dariiqyo hor leh oo ay mari karaan wadamada sida wadankayga oo kale oo hadda bilaabay inay ku soo laabtaan dhabbada horumarka dhaqaalaha kadib caqabado muddo dheer soo jiray sidaa daraaddeed Soomaaliya waxa ay si adag ugu boorinaysaa xubnaha COMESA iyo hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah oo ay ku jiraan Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika iyo sidoo kale Guddiga Dhaqaalaha Qaramada Midoobay ee Afrika inay gacan ka geystaan xoojinta aqoon isweydaarsiga, kobcinta awoodaha, cilmi baarista iyo horumarinta siyaasadda Soomaaliya taasi oo loo fidinayo siyaasad-dejiyaasha iyo ururada ganacsiga ee Soomaaliya oo aan ku kalsoonahay inay kaalin weyn ka qaadan karaan barwaaqaynta COMESA iyo guud ahaan qaaradda Afrika sida uu qabo heshiiska ganacsiga xorta ah ee Afrika mudanayaal iyo marwooyin waxaa lama huraan ah in qorshaha istiraatiijiyadda dhexdhexaadka ah ee COMESA 2012-2025 uu diiradda saaro xoojinta isdhexgalka suuqyada soo jiidashada maalgashiyo dheeri ah iyo ka faa'iideysiga fursadaha iskaashiyada kala duwan taasi oo u ogolaanaysa wadamada xubnaha ka ah ururkeena inay si degdeg ah oo waarta uga soo kabtaan cudurka COVID-19 haddaba aad bay muhiim u tahay inaynu ka faa'iideysano oo aynu sii wadno kobcinta awoodaheena dhinacyada beeraha xoolaha iyo macdanta inaga oo ka faa'iideysanayna fursadaha ku jira dhaqaalaha buluugga ah ee badaheena Somalia has one of the longest coasts in the world and it's great investment opportunity for responsible investors who want to create opportunity for themselves and establish supply chain link activities that will benefit our citizens. Soomaaliya waxa ay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer adduunka waxa ayna fursad weyn u tahay maalgashadayaasha kuwaasi oo doonaya inay abuuraan fursado faa'iido u leh muwaadiniinteena awood dhisidda aqoon isweydaarsiga iyo maalgashiyada wadaagga ah waa waxa aynu u baahannahay si aynu u gaarno horumar dhaqaale oo maansheeya dhammaanba dalalka xubnaha ka ah COMESA waxaana dhammaanteen waajib inagu ah inaynu iska kaashanno sidii taasi loo gaari lahaa doorka maamulka dawladeed ee ku salaysan tiknoolajiyadda casriga ah ayaa aas-aas u ah isdhexgalkeena dhaqaale ee gobolka iyo ka faa'iideysiga fursadaha baaxadda leh ee aan soo sheegnay waana inaynu dedejinnaa taabagelinta kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka ah laga soo bilaabo hoos u dhigidda sicir bararka ganacsiga sahlidda iyo dedejinta xogaha suuqyada ganacsiga iyo fursad u siinta ganacsiyada yaryar dhammaanba suuqyada gobolkeena isdhexgalka dhaqaale ee ku salaysan tiknoolajiyadda casriga ahi waa habka keliya ee meesha ka saari kara caqabadaha qaab dhismeed ee lidiga ku noqon kara taabagelinta hadafyadeenna gabagabadii innaga oo ah dalalka xubnaha ka ah COMESA waa inaynu hoosta ka xariiqnaa horumarinta isdhexgalka dhaqaale ee gobolka taasi oo ah damaanad qaadka ugu wanaagsan ee xasiloonida horumarka bulshada iyo barwaaqada dhaqaale ee dhammaanba xubnaha ururka iyo dadkeena waana tan udub dhexaadka u ah in aynu habmaamulkeena dawliga ah u rogno mid dijitaal ah oo ay saldhig u tahay tiknoolajiyadda casriga ahi dabcan waxaa jira caqabada cadcad si dhammaanteen aynu uga soo kabsanno saameynta adag ee musiibada COVID-19 si kastaba ha ahaatee iyada oo diiradda la saarayo xoojinta isdhexgalka suuqyada iyo dardargelinta iskaashiga waxaan ku kalsoonahay in xubnaha COMESA aynu si siman uga soo kaban karno innaga oo xoojinayna adkaysigeenna iyada oo loo marayo isdhexgalka dhaqaale ee istiraatiijiga ah kaasi oo ku salaysan tiknoolajiyadda casriga ah iyo waxyaabo kale oo muhiim ah I'm confident that we can recover equitably as COMESA members by building resilience
through strategic digital economic integration, among other key things. I thank you all for your kind attention.